remarks from our former president of Somalia, Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Welcome. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماجو قدوميها أغل كسرة قدومي كحوانكا بارلبانكا مدحوين سعيد عبد الله داني مدحوين كحوان كيسا مدحوين ياشا مامل قبلديدا وزير هذا حبناها بارلمانكا دمان دبلوماسيين تكسو قيب قشي حفلة غالقة سيدا سوكا لوفدقا كيميد كينيا دمان كسو قيب قلياشا مضليان يمرووين كما تقايا صحافة ديو فنانين وحانكو سلام مع سلامة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كدب فرصد وين ايتها عاوين عن كسو قيب قل حفلة دان كاللوسو أقاسمي وحان رباينا نوغا مهد عليا قدقا قبان قابضة سيدو وناكسنو سو أبابولا إنا نوغا مهد عليا مركو هذا حفلة دان قيمي قاله سيدا أسوكا لو حان رباينا نوغا مهد عليا دادك رير بطلان runtii noo muujiyay maamuus iyo qiimeyn iyo soo dhaweyn aad iyo aad u wanaagsan oo ku mahadsantiin Allaan adinkana intaas kadib waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo walaalkay Saciid Maxamed Cabdullaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan maamulka cusub oo la soo doortay waxaan leeyahay hambaliyo doorashada la idin doortay xilka la idin dhiibana Allah idin la qabto intaas markii aan ka gudbo saaxiibkay madaxweynaha waa ila ballayay marka inaan hambaliyo ku istaago haddana waxaan u maleynayaa ballanta dadka in la wada gaarsiiyay waxaan arkaya dad badan oo dardaaran dhiibaya haddii ma aqaan aniga dardaarankaas inuu kaliga i qabo doono iyo marka waxaan rabaa madaxweynaha dardaarankiisa inaan tixgeliyo fariin la soo dhiibana aan dhiibo madaxweyne inta soo ogoshaa Soomaa Allah ybarik fiik iga raali ahaada maanta markaan soo socday anoo meesha dad badan isugu tagay maxaa sheegi doontaan oo isle maqaayadan galo waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray ya Carweelo ayagoo shaah cabaaya oo kaftamaaya Carweelo kafee waxaa u shuban maxaa la dhihi jiray kubadshino odagana waxaa u shuban shaay cadaysa oo maxaa la dhihi jiray danguus ma la dhihi jiray shaayga shaay caana leh marka waxaan ku yiri war haye bal warrama oo waxay yiraahdeen waa fiican halkaan aan joognaa waxaan rabnaa dalkii inaan u laabano bariyaha halkaan aan joognay waxaan ku yiraahdaa dalkii aan u socdaa waxay dhahan fariin aan ku dhiibaynaa waxay ku yiraahdeen fariinta meesha u socoto Garowe la yiraagay oo Soomaalida u sheeg shirkooda iyo naqanin shir la isugu yimaado lagu kala tago waxa ka soo baxaano tala ka timaado waxaan ku yiraahday suura gali weyso Soomaali waa dhib badan tahay waxay yiraahdaan madaxdu intay qol gasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaaya ka soo baxaano waxay isdhahanayeen sheegin waa ma santiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi